hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yidhi haye hebel baa nolosheeda ka xun hebel baa halkaa i dhigo sidaa ii galay zamanka adiga kula hayade ana zamanka sidaa ii galay buu ka odhan may sidaa ma aha qofka muuminka iimaanka la waa inuu umuuraha waa inuu yidhahdaa hadday dhibi ku dhacdana waa inuu yidhahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka lagaga goynayaa hadday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa kuu qadaray haddii walaalka ilaahay u nicmeeyana waxaad tidhahdaa nicmadda ilaahay kuu nicmeeyey hani allaka waan kuu haneeyey hadday walaalkaa balaayo masiiba ku dhacdana waa la tacsiidayaa waxaa la yidhaahdaa insha allah balaayada waad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminaa zamanka ha aaminin ayaad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaqa la yeelo abu darda iyo salmaan qiso dhex martay baan ii sheegin salmaan farisi buu ahaa radia allaahu canhu wuxuu damcay markaa inuu guursado abu dardaayo markaa uu nebigu walaala uu ka dhigo walaaleeyey ukhuwat alislaam ayuu ku yidhi abu dardaayo reerkaa gabdho fiican bay leeyihiine gabadh orodoo iiga doon waa hagaag markaa dibadduu ku sugayaa aqalku aqal weyn maaha waa aqal yaroo cariisha abu dardaa ba aqalkii soo galo waa la soo dhoweeyey waa qoys markaa yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyey marka abu dardaa baa yidhi waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay salmaan alfarisi baan u rabaa markaa bay yidhahdeen salmaan inantayada siini mayne laakiin adigaan ku siinay ku yidhahdeen gabadha weligeedii mar hadduu ku yidhahdo waan ku siiyey uu ku siiyey ogow khalaas waa xaaskaagii laanna waa saddexda nebigu yidhi saddex kaftankooguna waa dhab dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nebiga ku salliya inantaydii waan ku siiyeyna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas والعياذ بالله دينته وان كبخي قفك هدو يرادنا waa ka baxay ogow والعياذ بالله marka abu darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii salmaan uu sugayaa salmaan oo isna aroos isku diyaariyay arooskooguna bariga maba adkayna gabadha intoo la isa siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galayay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacay ma macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam inantiisa faatima markuu cali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri cali ka waran faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto uu ka xishooday faatima waan ku siiyay buu yiri aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri oo socday inantiisii buu nabigu u tagay faatima aabo waan ku dhisay yaad ii dhistay cali waan ku dhisay radiyallahu anha way amustay way xishootay markaa bay hadasho aaba ma hadla hadal buu ka yiri cali baad ii dhistay ha cali yar calol buuran yahay haye habeenoodna uu leeyahay habeenkii indhaha aad wax uga ma arkay ku tiri markaa buu nabigu ku yiri faatima laqad zawajtuki وإنه لأقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما بكيري فاطمة إنك أنكو قريي وأنك إسلام نمضى أمد إذا أغسهر إسلامي وأنا إنك أمد إذا أغو علم بدن وأنا إنك أمد إذا أغو دلقات بدن برسول كيري بركنتانا قادو قديفتانا قادو ويل كان بيها كردان صدق عاون وكوهين يا ديار قروب وكيدي نقول إمك قبلها وحبكم ما درناه حوما كسبنا سوما تبادن سومالي مركي دسيس ويل كي خرج كبادن كبحيان نبي يقول إن أنتي سي فاطمة مركو دسي ورعي بركين بوسيي جوجل بوسيي ويل بوسيي بركا جوركا وفضوا ذا كان الزمن كان عذاب كان ماها
oo fududa noloshu way fududay guurka hadii la fudaydiyay bay culimadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxa la fududeeyay ogow zinadii baa la fududeeyay marka guurka inaan fudaydina diyaar ma unahay waa sababta kaliya bay culimadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno in guurkana la badiyo in la fudaydiyo walibana Salman Farisi banaanku taagan yahay walaalkii Abu Darda ayuu sugayaa Abu Darda baa soo baxay marka Salman baa yiri bishaare wuxuu wixii meesha ka dhacay ina kaaga warramo waan ka xishoonaya buu yiri wara xishoona ii sheeg ma la yeelay mise waa la diiday waniga gabadha adiga waa lagu diiday laakiin ana la isiyo aroosa buu yiri ana ba aroosa markaasuu qoslay wuxuu yiri ka xishoonaya adiga ma hay waa aniga buu waayo calaf ilaahay adiga ku qoray calafkaagi samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu yiri ka xishoon adiga ma habir waa aniga ee walaal adigan Allah ku barakeeyo zamankan arinta ma dhici lahayd wala isku rogman laha Soomaa waa adeer dhigtay ayagu waxa la baray waradeer amar ilaahay baa adduunka socda wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhici wax kale ka dhici maayo marka zamanka ayaan waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaqiisa ka socda ilaahay xidhiidh fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xidhiidhkii innakii ilaahay noo dhaxeeyay baa meesha ka baxay xidhiidhka haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo aakhire ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kaanat ad-dunya hammahu ja'alahu Allahu al-faqra bayna 'aynayhi wa farraqa Allahu shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabigu yiri qofka hamigiisa ka dhiga adduunyo waxa uu ku fikirayaa waa adduunyo waxa uu ka shaqeynayaa waa adduunyo waxa uu ku seexanayaa waa adduunyo waxa uu ku soo kacayaa waa adduunyo waxa uu ka hadlayaa waa adduunyo waxa uu eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisoo dhan ilaahay bariye galbeed buu kaga kala sheedinaya nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saaraya faqri waligaana ka baxay baa labada indhood loo saaraya arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala mehla buu rasuulku yiri ومن كانت الآخرة همه نك همي سكدق أبو نبي يقول آخره معناه قام حي يعني ملك استوجوج إلهي بكا عبصونا يا صلاة دي بو إلى لنا يا صون كي بو إلى لنا يا حق دتك وسك إلى لنا يا حق جارك سو إلى لنا يا حق دتك لنا اللي هي بسك إلى لنا يا دم بيقول إلى لنا يا وناقي أيوك شقينا يا همي سو آخره عمل آخره دي سكت وعيا وكدكتون يحي عمل آخره دي سبت بعدين ينا وديرن يهو قبنا يا مر والبا نكامي سكدق أبو النبي يقول آخره قلبي سا إلهي كدق غني هضن تنمى قلبك إلهي سياه قفكم ماشي وكان نقضى عيدنا وقلبك ماشي غني كان نقضى أنا وهالكي وقلبكم يقول عن مدن هبل ونن مليون ديرة ورقدها ما هو حبنا هذا كقلبك سا غنى ذا قلنا يا غنى ذا قلبك وحق ليا وأمرك قلبك وجست إلهي معرفة سي آخر ذا وين كده همي سنك كدق أبو النبي يقول آخره قلبك إلهي هذا تنمى وقبو حيا أرميه صورنا إلهي بس قصة الريا أدويدنا يد الدليسن أو أسن دليسن أي هاست ما داب رسولك يقول أدويد مؤمن كوي دون هاركا ما أدو كود دبس سعدا مثلا دبس سعدا يا سأكون دبس سعدا هار أدويد بالي رقفك أدويد واسطة هاركا أدويد دين تيلا سعتا أدويد آخرة دبس سعتا هذا ترى أدويد أيانو جسن وآخرة دي باكج جسن وحال لمتها ننيري هاركا أيان سوق بنايا ما سوق بنكريست ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له بالنبي يقول ما هلو قفك همي سأدوية كدقة ما هلا بالنبي يقول إلا وحي إلهي وقدر ما نوح كلام هلو مركا أدوية إلهي بأن نقول دح أبوري أو نقول دح امتحامية
marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hada ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas'uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doonta waxaa loo isticmaalaa beriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakar sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam wuxuu ahaa bagaashul ahaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socda kale yaa abaabakar ilaa ayna wuxuu idhi dee waa shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walbe iyagu sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadda u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygana ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa shuuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu riday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku wadaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxa adduunyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane
igaga celiya buu yidhi inta inii soo hadhana ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen oo reerka siinaya 2 sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar bin khadaab baa loo keenay cumar uu ooyay abubakar sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tagay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi 2 sano iyo dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeena ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid waa 10kii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibn zayd abalacwar markaasuu leey waa laga soo dacwooday saciidow iyaga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay iyaa la leeyahay oo macal ceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indhabeeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la ego dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata 7 dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguna ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaan oo inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna hanu soo noqono ha toobadkeenno in yar baan adduunyada jooganaa in yar وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
بري تولى نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبو ماشى قبرجاج ونقون وقبرجاج ونقون كما ورقبنا مركا ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره ما ديروا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي بشيء قيامه ما ديروا حقنا وكادر يهي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارين توازدود هي بعثت أنا والساعة كهاتين لا ولا فرض النبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد حذا النبي قسكو قبتي مركب النبي يري أنا يا ساعة قيامته سدا لا ولا فرض اسكو خيغا ما اسكو خيغنا برسولك يري مركا إلهي نحن سنقول هكبرنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دينته إننا ما ركتاني هنكشقينه وشقد دينته علماء يا معلمين توكليه كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قف كستو مسلم الدين الحلبة كسارا إن النفط هذا إصلاح صح وواجب إن أمة إصلاح يجنا ددالك أتكقب قادتنا وواجب دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية ويان وانا ضرورة بشرية ودما مات الدعوة أوباهن مسلم كيف أوباهن إن صلاة الله يرو ومسكيت الله يرو وحلقات الله يرو ودين الله نصلحيه قال كي نوح أوباهن يهي إن إيمانك إسلام نمط الله بندقه أوباهن يهي مسؤولية دانا حل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمتي سارو يري لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أنا النبي قمدن بيبو نبي يقول إنك أنا أمة إنك قمدن بيسه كينا حاضر كيما أنت إلى جوجو كينا مغنغارسي فرب مبلغ أو عام سامع يكوي مغليين صحابته أنت النبي كم مغلين بيأدون كودن غارسيين هل كي مالنتي رسالة غارسيين بالليدي إنك كسر نقطة مويانة هل كي أي دقيقة بيتاجن تايمانت إن شاء الله إنكم إن دين تنا كشقينا وذا النيود إن شاء الله هبين دمنا وجمعة مركز كسر قريب قال كلن كدين تولي وحافظ إن المركز كون نيود وياه ومركز إلهي درتي وبح على نجيد هذا أنا عبسوني يسكبح فارما بحينه نبى الله واجد حنوك كورونا لبنبورين أيه أيه هذا كورونا لقاها لي أفر تبع شقولك كجر مو فدي مسوق بحي وكجري بدبال الشيء إسلام دي سيكود هاي سودوان وعيالك هاي سودوان أنا أقول هالصعدو أفر تبع شوف يستقول دحدي سو هرجب كأوجبحه قلبي نين أديده كبحضه وعظمة مخلوق كبحضه والزمن كأن كنت تعلق صنّه هي أنسيد إنه وحرير كإلهي أن صوت كيسنّه أفر بلادنا المسجد دحفرنا وما بهنين مسجد قوار راحوا ولي بنا صومه هذا أنت إير ساعدنا وده هل لنا إمسا دارين كينو زيادة يا إمسا أنا قدرين كينو سبدل يا إلا وعن قال لنا ودينه بركة إن شاء الله بليال إن شاء الله وقت يقولوا فرصة يقولوا إن بالجماعة هذا إله درتي وبحايا أفر بلاد لبا بلاد فالصحيح أن هيستوين أن إله درتي وبحو يا بليون إن شاء الله إن شاء الله هذا للوسائل حكم المقاصد بعلمة إليهن مددا لبحايو ووسائل الدعوة وسائل سيدا آلات كنيمة نقضوا بيسان إنكم مجعلين بريقوا هري لكن برياهن وحيد هذين والله بهاي هيسك هاللون لأنكم نوحي لين صور حمرية خير ومضى ونشيقنا إن شاء الله هذا إلهي نجا أقبلنا ورجينا ها قبول يدا مهمة إمسا كود جيزتو كود دعوتي مهمة ها إلهي مكها أقبل بها مهمة مسوق وسوع شيء إلهي نجا أقبله إن شاء الله هبين دمنا فكر ديك وكسر قيب قالنا ضد بدنا ولا لهنا وحنوسا أي جرد دعاءنا سأود دعين بين إن شاء الله فاتحة دورت أمرا فاتحة قف والبا إن شاء الله هلكو كقربيسان يهين إلهي قربة كنقاضو هلكو كعبنا يحنون كهاين إلهين والضبيلها كراعيو لأن القرآن هو الدو دعاء المؤمنين تأسكت دعينا يعني إن شاء الله ومقبولة إلهي من نجا أقبليه هرتبل سورة الفاتحة وأخريها
dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allaha inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allaha inoo siyaadiyo daacadda allaha inoo macaneeyo dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba allaha inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysana kurbada allaha ka qaado dad badanoo xaadiriinaya kuwa qaybinoo duca dalbay baa jiree mid walba alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban yaa allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan haddaad noo dembi dhaafan ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام